Asalaamu calaykum. Waxay inoo mareysay doorashadii ugu horeysay ee ka dhacday geeyo Soomaaliyeed oo ka kala dhacday gobolada waqooyi iyo koonfureed ee dalka, iyadoo ay aqlabiyadda golayaasha ay ku kala guuleysteen Somali Youth League (SYL) oo dhanka koonfureed ah iyo SNL Somali National League oo dhinaca waqooyi ah. Haddaba maxaa xigay? Ku soo dhawaada qaybtii labaad ee taxanaha. Dhalashadii dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dhismihii golihii sharci dejinta Soomaaliya ee ugu horeeyay. Goboladii waqooyi ee dalka Soomaaliya ee loo yaqaan British Somaliland oo madaxbannaanidiisa helay 26 Juun 1960 waxa uu kowdii Luulyo 1960 la midoobay goboladii koonfurta Soomaaliya oo ku jiray wasiyada ama dardaarankii qaramada midoobay. Midowga labadooda waxaa ku dhismay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo madax bannaan sida ku cad sharciga lambar 5 ee 31 Janaayo 1961 oo ah sharciga Soomaaliya oo madax bannaan ku midowday. Golihii qaranka ee ugu horeeyay ee Soomaaliya waxa uu ka koobnaa 123 xildhibaan oo ah wadarta 90 xildhibaan oo ka yimid golaha qaranka ee koonfurta Soomaaliya oo la doortay 1959 iyo 30 xildhibaan oo ka yimid golaha sharci dejinta ex-British Somaliland oo ahaa xildhibaanadii la soo doortay 1960. sidaana waxaa ku samaysmay golihii sharci dejinta koowaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana loo yaqaan National Assembly ama Assemblia Nationale. astaanta lagu gartana waxay ahayd AN oo guduudan. golaha sharci dejinta koowaad ee Jamhuuriyadda ayaa si ku meel gaar ah u ansixiyay dastuurkii 1960 una diray in shacabku ku ansixiyo afti qaran, wuxuuna golahan isla markaa mudane Aadan Cabdulle Cismaan u doortay inuu noqdo madaxweynihii koowaad ee Soomaaliyeed ee madax bannaan. natiijada doorashadii madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Luulyo 1960 waxaa dooranayay golaha xildhibaanada qaranka National Assembly. tirada xildhibaanada fadhiyay ee codeynayay waxay ahaayeen 115 mudane. wareegga koowaad waxaa ka aamusay 8 mudane. codadka ansaxay waxay ahaayeen 107 mudane. wadarta codadkuna waxay ahayd 115 mudane. mudane Aadan Cabdulle Cismaan waxa uu ku guuleystay 107 cod oo ka dhigan tirada dhammaan codadkii ansaxay. wareeg labaad iyo mid saddexaad toona ma jirin. fiiro gaar ah sida uu qabay qodobka 71 ee dastuurka 1960 mudane Aadan Cabdulle Cismaan oo waagaas ahaa 45 jir wuxuu noqday musharaxa kaliya ee buuxiyay da'da dastuuriga ah ee lagu noqonayay madaxweyne, wuxuuna markaa hayay xilka gudoomiyaha baarlamaanka maadaama uusan jirin musharax kale oo u soo istaagay tartanka madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliya buuxiyayna shuruudihii dastuuriga ahaa. isagaas ayaana loo doortay madaxweyne muddo hal sano oo gaarsiin ah tan iyo inta afti dadweyne lagu ansixinayo dastuurka cusub ee 1960. aftida qaranka meelmarinta dastuurka 20 Juun 1961 dastuurkii 1 Luulyo 1960 oo golaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya sida ku meel gaarka oo ansixiyay waxaa 20 Janaayo 1961 lagu meelmariyay afti qaran oo loo bandhigay shacabka Jamhuuriyadda. natiijada rasmiga ahna waxa ansixiyay kuna dhawaaqay maxkamadda sare. natiijada codeyntii shacbiga oo kooban waxay noqotay tirada doortayaasha cod bixisay 1,948,348 cod. inta ogolaatay dastuurka 1,756,216 cod. inta diiday dastuurka 183,000 oo cod. xaanshiyaha xumaadayna waxay ahaayeen 9,132 cod. aftida qaranka waxaa loogu codeeyay dhammaan goboladii markaas jiray oo ahaa 8 gobol. gobolka Banaadir waxaa lagu codeeyay 8 degmo: Muqdisho, Marka, Braawe, Afgooye, Wallanweyn, Jowhar, Balcad iyo Aadan Yabaal. gobolka Jubbada Hoose waxaa lagu codeeyay Kismaayo, Jamaame, Afmadow iyo Jilib. gobolka Jubbada Sare waxaa lagu codeeyay Baydhabo, Buur-Hakaba, Luuq, Xudur, Diinsoor, Baardheere. gobolka Hiiraan waxaa lagu codeeyay Beledweyn iyo Buulaburde. gobolka Mudug waxaa lagu codeeyay Gaalkacyo, Dhuusamareeb, Ceelbuur iyo Hobyo. gobolka Majeerteeniya waxaa lagu codeeyay magaalada Boosaaso, Qandala, Caluula, Isku Shuban, Qardho iyo Eyl iyo Garowe. gobolka Hargeysa waxaa lagu codeeyay magaalada Hargeysa, Berbera iyo Boorama. gobolka Burco waxaa laga codeeyay 3 goobood: magaalada Burco, magaalada Laascaanood iyo magaalada Ceerigaabo. fiiro gaar ah codeynta aftida qaran waxaa cabashooyin ka soo jeediyay degmooyinka Marka, Afgooye, Beledweyne, Dhuusamareeb iyo Ceelbuur iyo xisbiyada siyaasadeed ee GLS, SNL iyo USP. cabashooyinkaasi waxaa 4 Luulyo 1961 go'aan ka gaartay maxkamadda sare oo ansixisay natiijada kor ku xusan. waxaa xusid mudan in tirada diiday dastuurka cusub waxay u badnaayeen dadkii waagaas deganaa gobolada waqooyi ee Jamhuuriyadda ee ex-British Somaliland iyo gobolka Hiiraan. waxaase aqlabiyad aad u ballaaran ku ansixiyay dastuurka cusubna ku ogolaaday dadkii Soomaaliyeed ee ku noolaa gobolada dalka intiisa kale. natiijada doorashadii madaxweynihii koowaad ee dowladda Soomaaliya 6 Luulyo 1961 kadib markii maxkamadda sare go'aankii 4 Luulyo 1961 ay ku ansixisay aftida qaranka muddadii halka sano ahayd ee xilxaynta ku meel gaarka ah ee madaxtooyadana dhammaatay. waxaa la iclaamiyay in 6 Luulyo 1961 la qabto doorashada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo muddada xilxayntiisu noqonayso 6 sano. waxaa xilkan u soo istaagay 2 musharax oo kala ah mudane Aadan Cabdulle Cismaan Dacar iyo mudane Sheekh Cali Jimcaale. natiijada iyo sida ay u dhacday doorashaduna waa sidan soo socota. waxaa dooranayay golaha xildhibaanada qaranka National Assembly. tirada xildhibaanada fadhiyay ee codeynayay waxay wareegii
saddexaad ahaayeen 123 xildhibaan. Wareegga koowaad hal cod ayaa aamusay, 119 cod ayaa ansaxay. wadarta guudna waxay ahayd 120 cod. Wareegga labaad hal cod ayaa aamusay, 119 cod ayaa ansaxay, 120 codna waxay ahaayeen wadarta guud. Wareegga saddexaad wax codo aamusay ma jirin, 123 cod ayaa ansaxay oo ah 123 xildhibaan ee goobta fadhiyay. Wareegga koowaad mudane aadan cabdulle cismaan wuxuu helay 60 cod, mudane sheekh cali jimcaalena wuxuu helay 60 cod, taas oo ka dhigan inay isku cod heleen. Wareegga labaad mudane aadan cabdulle cismaan 59 cod, mudane sheekh cali jimcaale 61 cod. Wareegga saddexaad mudane aadan cabdulle cismaan 62 cod, mudane sheekh cali jimcaale 61 cod. Firo gaar ah sida uu qabo dastuurkii 1960 wareegga koowaad iyo kan labaad musharaxiinta waxay ku kala guuleysan kareen qofkii hela 82 cod oo u dhigan 2/3 tirada guud ee xubnaha golaha, taasoo midkoodna helin. sidaa darteed waxaa lagu kala baxay wareegga saddexaad oo cod haldeeri ah mudane aadan cabdulle cismaan ku guuleystay inuu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee 6 sano ee soo socota. waxaa inoo xigi doona doorashooyinkii golayaashii dowladaha hoose ee 1963 waase inoo qaybta saddexaad soo dhawaada.